Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada Gari Global Network. Maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan abaar iyo maamul xumo musuqmaasuq ah ee ka socota gobolka Daawa, gaar ahaan degmada Uudad, Somali State. Warbixintuna waxaa noo diyaariyay walaalkeena Baganaale. Warbixintuna waa sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ملا جوكتو ودي سلام أيا سلامتي إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا إذن لي سلام كبعضي أدوحا ربينا أنكهالو لباتة كتاغن قبول كدعوة اسمام ملك الصومالي دا سيدا انتي نبضان الله سعوتان قبول كوحا كجرة أبار آدو بأنبا هد كجرتا أبار تاسي كله فتي قبول كاسي runtii waa abaar aad u kulul. dadka waxa haysta biyo la'aan oo aan biyo haysanin. se waxaa nagu maqaalaa in gobolka Daawa degmadiisa Uudad oo runtii aad looga soo qaylinayo, qaasatan maamulka degmada aad baa looga soo qaylinaya. qayladaas waxay tahay gudoomiyaha degmada Uudad gobolka Daawa ismaamulka Soomaalida intuu ummadaasi biyaha u dhaamin lahaa ama dhibaatadoodu ka hadli lahaa, ninkaasi maanta wuxuu sameeyay inuu telefishinka SRTV uu qaatay beer dad uu leeyahay ayuu maaragtay intuu tagay meel barwaaqo intuu tagay ayuu isku sawiray. beertu inuu tago wax dhibaato kama jirto, waa arrin fiican inay dadka beer ay sameeyaan horumar ay sameeysanayaan. laakiin waxa cajaa'ib ah in ninka intuu u qaylin lahaa ummadaasi dhibaatadooda ka hadli lahaa oo dhibka ummadaasi oon iyo haraad iyo biyo la'aan ummad meesha ka jirto inuu uu tago beer, intuu u tago meel fiican intuu istaago ama oo isku sawiro ama uu ka hadlo intii ka hadli lahaa dhibaatada ummadaasi haysato. aad arkaysiin ummadaasi oo biyo la'aan haysato oo runtii oon u baqtinayaan, isaguna intuu SRTV qaatay oo tagay beer shakhsi uu leeyahay oo meel barwaaqo runtii uma qabato ummadaasi, annagana cidii daawatana nama qabato. degmada Uudad ay leedahay booyad biyo dhaamisa. se booyadaasi waxaa la yiri dad masaakiin ah oo aan biyo haysanin oo ay waxay ku iibsadaan haysanin in lagu qasbay inay ma aragtay ay darawalka booyadaasi ay siiyaan 2500 oo bir oo ma aragtay gunnada oo darawalka isla marhaantana adana lagu qasbay inay booyadaasi ay ku shubaan batroolka ama maaragtay gaasta sida dadku nin walba u yaqaano. se meeshaasi haddii ummadaasi aan haysanin awalba biyo la'aan haysato oo masaakiina xoolo dhaqataa oo xoolahooda hadda inay ka baaba'ayaan ay maaragtay u dhow yihiin inay baaba'aan, haddana lagu qasbay inay 2500 oo bir inay siiyaan darawalka iyo haddana booyada ay ku shubanayaan batroolka. runtii arrinkaasi arrin saxa ma ahan. ciddii ku dhaqaaqdana wax saxa kuma dhaqaaqin. booyadaasi waxaa leh degmada ayaa leh ama gobolkaabaa leh ama maaragtay kililkaabaa leh. haddii ay booyadu ay leedahay dowladdu, maxaa sababay in dadka masaakiinta aan waxba haysanin oon iyo haraad ku dhamaanayaan, xoolo ay leeyihiin ay ka baaba'ayaan, in la yiraahdo iibsada biyana darawalkana lacag siiya booyadina biyaha ku shuba gaas ku shuba in la yiraahdo runtii arrin saxa ma ahan, arrin loo dulqaadan karana ma ahan. waxaa taas na tusaysa inuusan maamulka oo meesha ka jira uusan dani muraad ka lahayn ummadaasi, qaasatan maamulka gobolka Daawa iyo degmada Uudad. aawi gudoomiyaha gobolka aawi maxaa ummadda u hadli la'yahay? ummadda oon baa baabi'inaya. TV intuu soo fadhiisto ama u qaylidhaan u sameeyo oo kililka qaylidhaan u sameeyo ama dowladda dhexe uu ka codsado in ummadaasi la soo gaaro, ummadaasi biyo la'aan haysata maanta oon u baqtinayaan. runtii aad qaarkooda halkaan ku arki doontaan masawirkoodii iyagoo leen saf ugu jira si ay u helaan biyo hal caaga ama 20 liter
si ay biyo u helayaan ummadda intaasi baahidoodii ma intaas u dhibaataysan in haddana dhibaato kale la dul saaro la yiraahdo idinku darawalka lacagsiya idinkuna gaasta ku shubta maaragtay biyaha lidiin soo dhaamiyo runtii arrin aan la dul runtii arrin lama filaana baahayd arrin la qaadan karana maahan ciddii waxaas ku dhaqaaqdana runtii wax fiican kuma dhaqaaqin haddii ay waxaasi ay ka soo baxayaan maamul halkaa ka jira ama gudoomiye degmada amarkaas uu ka soo baxo ama gudoomiye gobol amarkaas uu ka soo baxo runtii arrin la dul qaadan karana maahan annagu runtii ka gudoomiye gobolka hadda muddo sanad ka yar meesha fadhiyay aad aragteen guriyaasha uu dhistay qasriga uu dhistay gaari uu ku socdo noloshiisa aad aragteen guri hadda intuusan gurigiisa dhamaysanin kuraa ku jiro aad aragteen baa waxaa la rabaa uusan ka hadlin ummadaasi dhibaatadoodii hal maalin ninka intuu TV soo fadhiisto uu yiri ummadaas waa dhibaataysan tahay naga soo gaara ninkii yiri maaha gudoomiyaha degmada uudad waa sidaasi la mid hadda dan iyo muraad ay ka leeyihiin ummadan waa inay u qayliyaan waa inay u istaagaan waxaan gudoomiye u yihiin ama meeshuu fadhiyaan ummadaasi dartoodi haddaan ummadaa jirin cid gudoomiye gobol idinka dhigata male cid gudoomiye degmo idinka dhigata male marka sidaasi darteed gudoomiyaha gobolka waa inuu ummadda u hadlaa dhibaatada ummadda haysatana gaarsiiya ciddii la rabo in la gaarsiiyo ayaanu kaa doonaya gudoomiye waayo maanu arag adoo hal maalin dhibaatada ummaddaasi ka dhiidhiya ama ka hadla TV-ga ama qoraal oo aad soo fadhiisataa tiraahdo ummaddaasi waa dhibaysan yihiin dhibaatadaasi baa ina haysata naga soo gaara adoo le ma arkin laakiinse waxaa nagu maqaalaa inaad lacag u aruurisaan wafdi baa yimaadeen 2 milyan bir aad u aruuriseen oo aan degmo walba aad saarteen 500,000 oo bir oo aad u aruuriseen 2 milyan oo bir oo aad leedihiin dad baan ku soo dhaweynayna lacagtaasi ka warram haddaa biyo u dhaaminaysiin ummadda oon baa u baqtinayaan dhibaato baa haysata ummaddaasi maxaa aawe gudoomiyaha gobolka aawe gudoomiyaha degmada uudad maxaa u hadli la yihiin maxaa ummadda dhibaatadan ugu daawanaya marka sidaas darteed dantiina gaarka waxaa ka fiican inaad qabataan danta guud ummaddaasi haddaa ummaddaasi meesha jirin oo aan joogin degmooyinkaas uusan jirin meel aad madax ku noqonaysiin meel aad guri ku dhisanaysiin meel aad ku xaragoonaysiin ma jirto marka waxaad wax ku tihiin ummaddaasi masaakiinta maanta 2,500 oo bir laga qaadayo oo darawal la siinayo biyana soo dhaamista la yiraahdo bal intee ka keenayaan ummaddaasi masaakiinta aad masawirkiin halkaa ku arkaysiin oo dameero dhaansanaya oo xoolo ay leeyihiin oo ka baaba'aya oo oon ku baqtinaya marka sidaas darteed ummadan ha loo istaago hana loo qayliyo dhibka heestana ha laga saaro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق مقعينا وبقنا عديان ودنجين وعدنا قيسي دلن وعوق الحرية لقى جيرين وديعة انت واسع لو دلو وقت لقو مقاتين عديان وداني جيرين وعدنا قيسي ليه دلن وعوق الحرية لقى جيرين وحيلة انت واسع لو دلو وقت لقو مقاتين
anna waari maaye inta aan wadku idilin waxyuhu is haystaan waajibay saarane calankayga walacliyo hawalwelin dadkaygo hawalwelin dadkaygo waxaan ahay wakiilo waajibay saarane calankayga walacliyo hawalwelin dadkaygo hawalwelin dadkaygo